Hey guys, what's up? هلو، كيف حالكم؟ ستين. caafimaadkiina waad ku mahadsantihiin horta inaana daawanaysiin. maantana waxaan ku hadli doonaa af Soomaali إن شاء الله. sidee naga dalbadeen walaalaheen. So maantana mawduuceena waxaa waaye gabdhaha or haweenka bishakil caam. walaashay ayaa bilaabaysa horta mushkilada haweenka oo ugu horeysa maxay tahay? بصراحة مشاكل بدن أجرت إليهن قبلها أو صومالية إكسوكيين أو دريمة إن حد يعني أو للظلمي زيادة سيدي قدنين شذا عمل أكهد لنا مانت إن شاء الله. وموضوع أو آد حساس أو قلبي حنو جناية أو يعني يوصل منه هرتك إنا أو وحاسيتي أو دن أو إسكدافنا يعقل حمضاس because وحاس مر هوري أهايين maxay ahaayeen waqti jaahiliya maxuu ahaay haddana nin oo kaafir oo waxaas ku dhaqmay inaa gabdhaha la gudgudo see ilmo u dhalin. fikirkeena maxaa waaye gabdhaha maxaa saas loo yeeli jiray see ilmo u dhalin, yani si dareenka dhan loogu qaado si insaaniyadna ahayn lagu sameeyo. soo halahaas inaan ka hadalnaa rabnaa anaka inay gabdhaha Soomaalida aad u dalbasan yihiin. hadda wax badanaa jirta dad oo ilbaxay oo waxaas iska dhaafay oo caqayaar noqday laakiin still way jirtaa mushkiladu. So waxaa isleedahay mushkiladaas see lagu xallin karaa? waa inaan iskarab istaagno oo hal cod noqona oo codkeena kor u qaadnaa ina oo waxaaseeti xaqdaro tahay eena tahay wax oo jaahilmina oo kulligeen hal cod noqono ina waxaas la joojiyo because waxaa oo anaka dadka ay dhahayn gudniisha waa no gudniisha ma ahan waa curiyaan minno oo gabarta xadgeeda lagu dhaqmaayo because gabarta markii saas la yeelo waa curiyaana laga dhigay. Yes, waa runtaas waxaa waaye arrin oo xanuun badan oo aad xasaas u ah oo qalbigana caawirayso runta ahaan yani laano xaqay u leedahay inay gabdhaha kale ay noqoto oo adduunka ku nool. gabarta Soomaalida aad iyo aad xaqeeda u lahayn xaqeeda loogu qaatay markii oo curiyaan laga dhigay. Yeah, from the beginning يعني markii nolosheeda bilowdaydo yariisa oo xataa raay ku lahayn mawduuca lagu sameeyay saas. So wallahi waa wax xanuun badan waana kula jiraa. umagtaa gabdhaheena Soomaalida mar walbaba يعني waa la dulmaa waa la dhibaa. hadda gabar lacala hadday soo baxda ay istiraahdo wax noqo okay ama video duub ama hees على طول ولا عايها ساس واي way heesay arkaa bla bla bla. cideeda loo tagaa waxaa leeyahay gabartiina meelahaas ka soo baxda okay wiil laakiin doo heeso caadi there's nothing wrong yeah caadi. gabarta haddee barata niman badan waxaa la leeyahay ciyaal suuqad waaye saas waaye laakiin wiilkii tobanuu la soco kariyaa banaanka u bixi kariyaa habeenkii ilaa saqdhaxo imaaha. gabarta haddii laba beri isku xigto banaanka aado no gabartan waaba khalaas wayba ka dhamaataba gabartan in la geliyo waaye dhaqan celis in la xero waaye in saas lagu sameeyo waaye. caqli daradaas in la joojiyo aniga kusoo jeedihaa Soomaalidoo dhan wax fiicanna ma aha. alwaysne gabarta in la saaro dhulumka oo la yiraahdo may gabarta saas samaysa may gabar waa saas inay samaysa ma aha. no gabar iyo wiil waa isku mid. hadda adduunka dhan naag iyo nin waa isku mid hal meelayna taagan yihiin. okay gaaladana iska dhaaf naagaha xayawaanaadka qadiraan anaka xayawaankaaba naga qiimo badan Soomaalida nahnay. gabdhaheena qiimad looma yeelo. gabdhaheena waxaa waaye yani nothing wax nimanka aslan nimankii leesh naagii waxay u arkayaan waxa wax ahayn maxaa jiro because wixii lagu soo koriyay asigoo yar
walaashiisa u maayso cuntada u keenayso cuntada ka qaadayso maybe walaashiisna taasna way ka weyn tahay why and iyadoo yar waxaa la leeyahay dhaq kushiinka dhaq musqusha dhaq waxaa samee walaalka u keen qado maxaa jiro dharkiisa u dhaq okay why asiga muu dhaqdo asiga muu samaysto asiga malik miya iyadana maxay tahay damayd shaqaalo may u tahay no shaqaalo maaha waa isku mid so ilmihiina saas inaa kusoo korisiin ma aha ina always wiilka iyo gabarta aa ka dhigtiin same waaye haddaa gabartaada u dirsahaysid inay kushiinka soo dhaqdo iyo alaabta soo dhaqdo wiilkaagana maalintiisa waa inuu asigana kushiinka dhaqaa oo alaabta dhaqaa so ani taasaa soo jeedi lahaa ama maxaa dhihi lahaa wiilka caaqilka yani ma aha kan oo hadda weli oo caqli yeeshan because kan caaqilka waa inoo oo isku noqda asiga oo ogaada inay walaashiis bini aadan tahay oo isiga oo waxba ka sareenin oo isiga waxaa weli inuu horumar gaarsiiyo moo inuu oo ka dhigta yani inay hoostiisa joogto maya waa inuu isiga oo horumar gaarsiiyo oo ka dhiga inay wax muhiim tahay oo ka dhiga wax oo yani sidii inay finyooraha guriga tahay camal yani oo waxdo oo xitaa oo ka codsanayo oo si kale uu codsado abaay macaan waxaan ii samayn kartaa camal ma ahan inuu oo qoorta uu istaago soo qabo oo lugta hoostiisa dhigo oo hadhowtina dhaha walaasheen markay ka tafashto guriga ee ka tagto ee nacdo guri dhan oo dhaha walaasheen ceeb noo keentay no walaashaa ceeb ma ku keenin because walaashaa adaa xumayse adaa guri u urisay adaa burisay fa isku noqo wiilka caqliga leh ala hadlawaa exactly anigana waa kula jiraa taas anakana waxaas aan ka hadlayno maanta waxaa naga keenay xanuun badan aan soo aragnay iyo dad badan oo nooga sheekeeyay xanuunka ay soo mareen oo aad noo xumeeyey oo calooshana nagu xanuuntay so please naagta ama gabarta ama dumarka Soomaaliyeed qiimaha loo yeelo ma ogtahay kelmad fiican oo wanaagsan gabarta ku dhihi kartaa kelmadaasna maalinteedoo dhan ee qorxi kartaa kelmad xunna waa ku dhihi kartaa gabarta iyadoo hurdada kasoo kacday maalinteedoo dhanna waa hadlay kartaa so waxaa la yidhi alkalimatu alxasana sadaqa okay tabasumuka liakhiika sadaqa anaka hadda wiilasha le ma la hadloono because gabdhahana waa la hadlaynaa inay ayaka caqli yeestaan yani walaalkood ka keensadaan jaceylka iyo xushmada iyo naxariista asla anakoo dhan saa iskuula dhaqmayno xataa dhaqanka Soomaaliga uu qaldan yahay dad badan ila agriyay oo ila jiro inay dhaqanka Soomaaliya aad u qaldan yahay like qofka wax ka rabiyo wuxuu leeyahay waraa waxa kora waxaasi naya kale ma ana iiso afnaqeysa waxaaseetay maxaa wax hore hada qofka wax ka rabtid hada qofka wax ka rabtid ku dheh abuu ku baryaa ma sii kartaa waxaas waa ku baryaada horta Soomaalidu waxay u arkaan wax ma wax xun bilcaks waa walaalka waa bari kartaa waxa dhihi kartaa please sii waxaas maxaa jiro maxaa u diiday inaad baridid يعني وحن معها أنا بردد مقطع كلمة في عنه قفكنا كنت رادد أو أنا عكسن هدا ما أنت مثلا وحائرك ولا شيء سكارف قرحي حرنتها وحالي أباي وقروح بنتا ما أنت ما لو البوسة حرتي كلا ردا فرفران متكلا ما هاي سو وحكل هذا الله حتى كذا كان حرتها إنها نجرد هذا محد ريمي مركزي شيء محد ريما أنا جبرتها سيتي يجمع سيرو سعمل because هذا ولا شيء محي يقول هذا وقرحنتها إذا نواقي ما تمحي يقول هذا مو قرحنت سو معنويات كي وحيريس ولا شيء إيتوسيسي يس لكن حمان يرمى دريمي سدو أكيد حمان يرى دريمي ير معها يمكن إن حتى نفسية يجيبسو نفسيات إنه يجيبسو لكن ولا شيء كهريس وكل هذا وقرحنتها كورن قفك أنا هاي سنين ولا الأكويرة هذا وقرحنتها وحو دريمة كاس سحن يعني تتبضنا جيرو أساس أو مجتمعين أو وحيد كل شيء أو يعني أو هاسنين ولا الكلا أو هل كلية ف وفي عنتها إنا أو هل كعنا خنا أو ولا لهنا واننا وصف عن سكول هذا
So guys, please subscribe and like. أنا إلوينا موضوعك كهدلونا أوربنا إنا هل عدنا خنو وإنا أو قبرت صومالي اللي عريا منين وكل موضوع واقع كاسيتي هل هذا أنا خنو هل عد أنا خنو وإنا قبرت صومالي كرلو هذا لأنه حتى صومالي حتى محكو بضت إنا لها سينجل ماذر single mother waxa keenayo maxalaya nimanka waxa seeti oo la curyaami yani nimanka yani gabarta oo Soomaali ah xitaa hadda maxaa gaareen inay dhahaan gabar Soomaali ah yani waa aroosaysa amkii la gabar Soomaali inoo ka ordo لأنه أنا يعني هذا لا أرك عربت إيو single mother كو كير يهاي لكن وحكو بدنيا single mother كم حواي بلدك أو Soomaaliya horta waxay guursanayaan gabdhihii ay ku yaryar guursanayaan cuz reerkoodii ka cararayaan laana reerkiya suxan oo la dhaqmay so takaas waxa dhibka keenaya so guys we like you, we love you all. Please subscribe and like and share as usual. Bye. Goodbye.